السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو هذا أصحاب تشرفت له بريها وأنا كل مغنين صنوق ونكسن وهذين الجنين عافماد قبطان ما أنت وحان يسوق بنيا شركة يأذو في سبطان قبر إن الآن يبدأ الآن وأنا لش هير سرك جارتي نقطتين نقف أوري أوقاته شهادة جامعة intaan u gudagelin sheekadan xiisaha leh fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe-ta iyo like-ta ha ilaawin hore haddaad nala joogtana subscribe-ta like-ta ku dhufo soo dhawaada marka asxaabta sharafta leh inoo gudageliya sheekadana marka waxbayaana hadalkeena ku daalin sheekada Helen Keller ayay ku saabsan tahay gabar la dhaho Helen Keller waxay dhalatay sanadkii 1880 bishii June 27 magaalada Tuscaloosa gobolka Alabama Mareykanka waxay ahayd gabar caafimaad qabta oo firfircoon laakiin markii ay 2 jir ahayd cudur ay khubaradu rumaysanayeen inuu ahaa jadeeco ayaa sababay inay lumin karto aragga iyo maqalka waxay noqotay gabar indho iyo dhago la'aan ah taasoo adkayd in si caadi ah loola xiriiro caqabadaha qabsaday Helen Keller waxay ahaayeen sida tan markii Helen ay weynaato waxay la kulantay caqabado waaweyn waxay isku dayi jirtay inay xiriir la samayso qoyskeeda laakiin way ku adkayd inay fikradeeda gudbiso dareenka niyadjabka ah iyo xanaaqa ayaa sababay inay mararka qaar noqoto mid xanaaq badan oo ay dhibto qoyskeeda beddelka nolosheeda markii Helen ay 6 jir ahayd qoyskeeda waxay la xiriireen Alexander Graham Bell oo ahaa cilmi baare ku takhasusay maqalka isaga oo ka jawaabaya codsigooda ee qoyska dhalay Helen Keller wuxuu u dhiibay macallimad la yiraahdo Annie Sullivan taasoo nolosha Helen wax badan ka beddeshay Annie Sullivan waxay bilowday inay barido Helen iyadoo adeegsanaysa hab gaar ah oo isku dhafan taabashada iyo erayada lagu qoro gacanta bay adeegsanaysa dadaal badan kadib Helen waxay baratay erayga ugu horeeya ee nolosheeda eraygaasoo ah biyo markay dareentay biyaha oo gacanta Annie Sullivan ku daadisay halka kalena loogu qoray erayga tani waxay ahayd furaha fahamka iyo xidhiidhka ka dhaxeeya Annie Sullivan iyo Helen Keller guulo waaweyn oo ay gaartay Helen Keller ma aysan joojin halkaa dadaalkeedii kuma aysan joojin way sii waday waxay noqotay qof aad u baranaya waxay baratay akhriska iyo qorista iyadoo adeegsanaysa farsawirka Braille waxay ku hadashay dhowr luqadood inkastoo ay ahayd dhago iyo indho la'aan
waxay noqotay qofkii ugu horreeyay ee dhago iyo indho la'aan ah ee shahaado ka qaata jaamacad. Waxay ka qalin jabisay jaamacadda Redcliffe College sanadkii 1904 iyadoo ku takhasustay cilmiga suugaanta. Halganka bulshada ay u halgantay. Helen Keller waxay ahayd nolosheeda waxay u hurtay ka shaqaynta xuquuqda dadka naafada ah iyo horumarinta bulshada. Waxay qortay buugaag badan oo ay ku sheegayso waayo-aragnimadii, sida buuggeeda caanka ah ee The Story of My Life, sheekada noloshayda. Waxay sidoo kale safarro ku tagtay caalamka si ay u dhiirrigeliso dadka, una soo bandhigto muhiimadda waxbarashada iyo halganka. Casharka nolosha ee laga baranayo waxa weeye sheekada tan. Sheekada Helen Keller waa tusaale weyn oo muujinaya sida aan caqabadaha ugu weyn nolosha loogu beddeli karo fursado. Waxay aaminsanayd in guusha aysan ku xirnayn xaaladaha jireed ee qofka, balse ay ku xiran tahay adkaysiga, aqoonta, iyo taageerada bulshada. Qoraal caan ah oo ay tiri Helen Keller wuxuu ahaa sida tan: "Waxyaabaha ugu fiican ee nolosha lama arki karo ama lama taaban karo, waa in la dareemaa qalbiga." Qoraaxdaas ayaa caan baxday oo ay tiraahdo. Sheekadan marka waxay dhiirigelin weyn u tahay qof kasta oo la kulma caqabado, waxayna tusaale cad u tahay in dadaal iyo niyad wanaagsan ay horseedi karaan guul kasta. Aragtidaada ka dhiibo sheekada tan. Maxaad ka fahantay? Seese u aragtaa? Mahadsanid.